halkan oo afaafka hore laga galo xarunta barasabka gobolka saaxil ayaa maanta waxa iskugu soo baxay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Berbera kuwaas oo ka cabanayay shaqaale maalintii shalay tababar lagu furay hotel Mansour kuwaas oo loogu talagalay inay ka hawlgalaan madaarka magaalada Berbera dhalinyaradaasi ayaa sheegay in dhalinyaradaasi laga soo raray magaalooyinka kale ee Soomaaliland isla markaana aan tixgelin shaqo la'aanta baahsan ee ka taagan magaalada Berbera waxayna maamulka gobolka ay ku eedeeyeen inaanu arrimahaasi waxba aanu kala soconin sidoo kale waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inay tixgeliso cabashada dhalinyarada magaalada Berbera waana kuwan iyaga arrimahaasi ka hadlaya dhalinyaradii gobolka hadaan nahay muddo waxaanu ka cabanaynay shaqaalahan dabakeenka ah ee meelo kale laga soo waaridayo waxaan maanta cabashadeeda horgeynay barasaabkii gobolka kaasoo nala qaatay nala garwaaqsaday dhibka jira maanta waxaanu ku hadlaynaa annagoo ah dhalinyaradii Berbera bulshadii Berbera ku xagaasanaysay ku nooleed ku dhaqnayd wax ku baratay imikana ku nool in aanu ka hadalno ka cabanno shaqaalaha laga soo waaridaya Hargeysa haday madaarka noqoto iyo haday dekada noqoto iyo haday noqoto shaqooyin kale oo jira cabashadii waan gudbinay waxaan u gudbinay maamulka gobolka ayaan gudbinay bari saabkaan la kulanay bari saabku wuxuu noo sheegay inay ka madax banaan tahay ay shirkad tahay ay ka madax banaan tahay duulistii hawada oo wixii shalay dhacay aan wax isagu uu ka og yahay aan jirin marka waxaan halkan baaq ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranka inuu soo farageliyo oo dhalinyaradii magaalada Berbera dhamaantood waa bilaa camal waana shaqo la'aan baasan baa taala gobolka haddaan nahay dhalinyarta gobolka saaxil waanu ku dulmarnahay magaalada Berbera maalin kasta waxaan loo keenayaa nimo yar galbeedkan loo keenayaa mashruucan la leeyahay airportka shalay toban lagu shaqaysii dadka mashruuca qaatay halkay ku qaateen iyo halkii lagu xayisiiyay maxaan ku dhahay lagu soo bandhigay hanaloo cadeeyo midda kale waxay kulmiyahan cid quri kula dhuuqayso tuumbada reer saaxil goormay kulmiye ka bixin waanu ka tashanaynaa midda kale waxaan u sheegaynaa tobankii xildhibaanaan dooranay ee u soo baxay xasaanada lahaa golaha wakiilada si degdeg ah inuu yimaadaan Berbera arrinkan ay eegaan nimankan golaha deegaanka ka soo baxay waa bila xasaanad waxaan idin sheegayaa 30 qof Hargeysa shanta walaalaha ee leeyahay iyaga madax banaan halkay ka yimaadeen Berbera maxaa uga meel yaala dhalinyaradu waa kuwaas gibigooda waa bila camal waxaan idin sheegayaa maalin kasta safaari baa laynooga keenaa laynagaga qaataa dad baana inagaga qaata dekadu waa taa maalin kasta waxaad ku dhex arkaysaa qof aanad garanay meel laaliin meel ku yimaado maalin kasta toban baa jooga airportku waa ka ma garatay Hargeysa lagu soo kala goostay Berberaan lagu kala goostay idinkoo jooga marka waxa idinka meel yaala ayuun baa idin sheegay dhalinyaro heesaa baxay waxa weey Soomaaliland waa hilaacday Berber way hilaacday hilaaca ma aragna anagu haddana shacabkan tunnaadana guul baan leenahay every day waxa weey waxaan ka hadlaynaa airportka degada cusub shaqo kuma hayno haddana safari baa isku soo dara yeeli mayno imikana barasaabkii ma ka nimid ونما ولينيو يلي مينو الله يبالله وتالله وري بربر من يلينا يلي مينو لا انا وسراado airportkan la shaqeeyo degadana la shaqeeyo awoodana online rees Soomaaliland baanay dhalinyartii berberanay qabtaan oo dadkan safaariga lagu keenay ee ay keensadeen inamada la yiraahdo mulkiilayaasha dawladda iyo wasiiradu ay naga celiyaan oo dadka imtixaan laga qaado oo cadaalad loo furo مسلح 6 تلفزيون كالصهن بربرة